buuq dhul baa la xidhay maxay baa la xidhay ka taagan warka ma bahayaanba dad faqiir ay maxaa corona waxaan cunaa laanahay buule aan cunaa laanahay buule corona hadii alla arkida waa cun lahayn buule mid oo ka baqi shaqadaadu may hoos bay u dhici dollarkii baa kacay dollarkii baa dhacay subax walba baanku tagiyo eegi lacag maxay taalaba oran murug buu ku jiraa kaasina murug iyo naxdin nin taajiro maalqabeena habeenkii ma seexda ninkaasi wuxuu ku seexdaa kaniin laakiin waashmaankiisa albaabka u ilaaliya waashmaan baa tirahdaan soo maha security haariska bawaabka markuu iridda xidho ay baabuurtu soo wada gasho meesha in albaabkaaba aqal looga sameeyo iska seexdaa waliba uu khuriyaa si fiican buu seexdaa qurruf qarraf ninka maalqabeenka u wareega marka habeenkii ma seexanayo dushaas uu ku leeyahay aqal waxa ciyaalkiisa mid boqol buu u sameeyay isaguna xagga sare aqal fiican ka dhistay wuxuu leeyahay shanqar ma maqlo laakiin ma seexda ninkaasi habeenkii imma xabuub buu ku seexan imma irbad buu ku seexan sidoo habeenkii marka uu wareegayo ila waa nin maalqabeen oo xisaab buu ku jira moogta xoolihiisii buu ka fikirayaa kanuu haddana ka fikirayaa kanuu u shuuraynayaa kanuu eryayaa kanuu soo qorayaa halkaa buu xoolo ka yaalay telefoon buu ku hadlayaa telefoon baa u soo dhacaya wax buu ka jawaabayaa su'aalo la weydiinaya ma seexdo maskaxdii baa dhalaashay laakiin wuxuu arkaa waashmaankiisii oo iska hurdo iska qurinaya oo yaabay haddana habeen labaad buu dul yimid isagoo qurinaya qurr ajiib dadka fuqarada waa ajiib moogta ilaahay uu qeybiye nicmada qoladan maal baa la siiyey laakiin raaxo ma haystaan qola waxaad arkaysaa fuqara la yiraahdo oo imika xanuunka waaga dhaweetay corona ka soo qaad example waa misaal gaban baan nin sheegi dadka ugu cabsida badnaayay hayeen heli sheega dadka gaaska yar haysta Soomaa gaaska waa kuwa lacagta yar haysta kuwaas cabsi badan masaajidda kuwa ay ku tukadaan ilaa imika afkooda xidhan yihiin fuqarada masaakiinta ee muruqmaalka ee maalintii iska xamaalinta la yiraahdo wax corona ka baqay ma aragteen iyaga arma aragteen ma jirin wadankan bariga aad u dhaxmaro xamar baan joognaa maalmaha adduunku diyaaradu kala xidhmayeen markaas diyaaradaha ku timaadeen way istaageen garoonkii xamarna uu xidhan yahay Djibouti way xidhan tahay halka way xidhan tahay dhulkaan iska marnay dhulka markaan marayna dadka hayjadaha ku nool ee xoolo dhaqatada ama fuqarada masaakiinta waxa magaalada wareer iyo qayl iyo buuq dhul baa la xidhay maxay baa la xidhay ka taagan warka ma bahayaanba غنيga ninka maal qabeenka iyo ninka maanta madax ahaaye meel fadhiyay labada ugu cabsi badan ee corona ka baqayso waa labadaas fuqaradu waxba kama baqaan dad faqiir ay maxaa corona waxaan cunaa laanahay buule aan cunaa laanahay buule corona hadii alla arkida waa cun lahayn buule mid oo ka baqi ilaahay uu qaybiye moogta nicmada kuwan maal baa la siiyay laakiin cabsi baa lagu riday qalbiga mar walba way baqaan kan waa faqiir ma baqayaba wuxuu leeyahay maxaa ka baqi imika nin lacag yar wato oo meel suuqa dhex maraya oo cabsoon wuxuu leeyahay bal tuugtu ku dhac laakiin nin xalay aan casheeno maanta qadeen oo faqiira hadduu tuug dhex maray muu cabsoonaya ma cabsoon muxuu leeyahay iyo kaaba baadan buu leeyahay aniga waxa cunaba laba ilaahay sidaas uu markaa bini aadamku ugu qaybiyay nicmadiisa lidaalika ninkan maal qabeenka habeenkii ma seexdo laakiin waashmaankiisu iska seexdaa uu fiirsaday uu fikray ninkii wuxuu yiri malaha ninkan wuxuu la seexanaya waa faqriga ana waxaan la seexanana waa qinada Soomaha bal waan eegi isagu markaa ku jarrabaya waxa la bishaarka wuxuu siin jiray mesela $100 bishii $300 ma uga dhiga bishii uu yeeray maalintii lacagta la siinay uu yimiday qaado buu koro warqad buu ugu xidhay warqad buuqshadii buu riday markuu kala furay waa $300 wuxuu lacagta waa ay qaldanteen may kuuma qaldamina waan ku gartay iska qaado buu kaydi halka buu iska gashay miskiinka uu farxay markaa habeenkiiba markaa ninka maalqabeenku wuxuu eegaya bal ninka inuu seexday ee kalcaaw eeg oo dulmaray awal 2 saac buu seexanay laakiin maanta 3 saac wali waa soo jeedaa ninkii uu fadhiyaa
oo fadhiya uu eega markaas uu soo jeeda haddana 4 saac buu kor maray wuxuu arkay ninkii oo xilligaas sii goglanayo sii seexanaya uu seexan waayay soo maaraysaa haddana wuxuu dul yimid meelaha 5 saac wuxuu arkay ninkii oo go'a huwadayo laakiin hoosta ka dhaqdhaqaaqaya markaa haddana 6 saac uu soo maro wuxuu arkay ninkii oo badhida u fadhiya markaas maxaa ku fariisiyay wax kale ima heline lacagtii aad ii biirisay ayaan ilaa imika ka yar fikiraya islaanta maxaad ugu dartaa kan kale maxaad siisaa kan waa miskiina maxaad siisaa ciyaalka maxaad u iibisaa maxaad la hadhaa maxaad ku samaysaa waayahay wuxuu iska soo xulay habeenkii oo dhan ninkii ma seexan waagii indhaha casaaday ninkii waa washman ilaa habeenkii inuu jiiftay haydo maalinkiina shaqeeye waagii markuu bariyay buu ninkii maalqabeenkii ba u yimid ninkii indhuhu casas yihiin oo albaabka furayo xidhaya markaasuu yidhi sheef labadaadii $100 ee dheeraadka ahayd iga qaada buu keenay waatan maxaa dhacay xalay kama seexan buu yidhi cadaab baad ku jirtaan buu yidhi cadaab aniga waxaan haystaa buu yidhi intaa yaraad siiso $100 baa masaariiftaydoo dhan way isku fadhidaa buu yidhi xalay labadaa $100 waan ka jiifan waayey buu yidhi ninkii maalqabeenkii markaa maxaa u baxay waxaan qofka bini aadanka wareerinaysa waa adduunyada weeyaan waa meesha culammadu ay yidhaahdaan war hadba intay adduunyadu inoo biirto hee walwali walbahaar biyo murug baa inagu biiraysa hadba inta iimaanka iyo diinta iyo taqwadu ay noo biirtana raaxa inoo biiraysa cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray qofka cibaadaysta ee ilaahay xidhiidh fiican la yeesha ee salaadiisu ay hagaagto ee cibaadadiisa ilaahay aqbalo 5 nicmadood baa ilaahay adduunka dusheeda uu ku siiyaa nuurun fi lqalbi buu qalbigiisa ilaahay nuur buu dhex dhigaa wadiyaa'un fi lwajhi wejigiisana iftiin baa ka baxa wa quwatan fi lbadani jirhkiisana ilaahay quwadiyo xoog buu geliyaa wasicatan fi risqi arsaaqadiisana ilaahay baa u waasiciyo u barakeeya wa maxabatan fi quluubi alkhalqi khalqigoo dhanna ilaahay qalbigooda kalgacayl baa ilaahay u geliyaa 5taas nicmadood waxaa lagu gaadhaa ee lagu helaa waa xidhiidhka ilaahay oo ku adkaada nuurun fi lqalbi qalbiga nuur baa ilaahay kuu gelin allah inoo geliyo allah ina siiya nuurkaas nuurka waa maxay waxay dhaha culammadu waa basiiro waa indhaha qalbiga ilaahay qofka u furiyo wixii xalaalana wuxuu ku arkaa indhaha wixii xaaraanana indhaha buu ku arkaa xaq iyo baadilka indhaha qalbigu ku kala arkaa khaaliq iyo makhluuqa farqiga u dhexeeya indhaha buu ku arkaa adduunyada gaaban inay gaaban tahay adduunyadu iyo aakhirada weyniga badanle wuxuu ku kala arkaa waa indhaha qalbiga haddii ilaahay nuurka qalbiga uu ku siiyo taciishu calaa bayinatin caddaan baad adduunyada adoo dariiq cad baad maraysaa ma khasaaraysa wadiyaa'un fi lwajhi wejigiisana iftiin baa ka baxa buuhi iftiin allah inoo iftiimiya wejigeena mu'minku waa cajiib hadduu lacag hataa haysan ma walwalayo ma walbahaarayo mar kasta wejigiisa waxaad ka arkaysaa farxad iyo bashaashad yaxsabuhum اljaahilu aghniyaaa min altacafuf waa sifaatkii asxaabta sifaatu saxaaba weeyaan in dadka magaalada madiine ku cusub ee remiiga ee magaalada madiine yimaada markay arkaan abaa hurayra iyo abubakar iyo cumar iyo raggaas fuqarada muslimiinta ee muhaajiriinta bashaashadda iyo farxadda wejigooda ka muuqata markay arkaan waxay isleeyihiin wala nimankani lacag ba halkaa joogaan walaakiin ilaahay waxa uu leeyahay may maaha waxa ka iftiimaysa lacage waxay wejigoogu la iftiimayaa waxay leeyihiin tacafuf way dhowrsoon yihiinoo bini aadanka baahidooda uma sheegtaan baahidooda bini aadanka uma sheegtaan way qarsadaan habeenkii bay ilaahay u sheegtaan habeenkii saacadaha dadku ay hurdaan bay kacaan yaa allah baahidaasaan qabaa isii yaa allah ubadkii baan garan lahay ii hagaaji yaa allah nolosha ciriiri igu noqotay ii waasici yaa allah inaan kuu dhowaadaan rabaayo ilaahu albaabkan kuu soo maraya ii fur yaa allah raxmaddaada waan u baahanay ii naxariiso yaa allah heegooyaa iga bugtay ii caafi saacadahee saacadaha rabbulcaalamiinku samada adduunyada uu imanaayo uu leeyahay yaa waxay weydiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobaddiisa han aqbale ayaa dembi dhaaf doonaya dembigiisa han dhaafe saacadaha haddaan kacnoon baahideenna ilaahay u sheeganno ilaahay baahideenna isagaa inoo daboolaya